laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabudo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool ee bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa maqari nabigu uu cadeeyay ala la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum marbu nabigu cimrigiisa xajiye markaliya markiina wuxuu yiri ani nabiga dambe ma jiro ummada niga dambeysana ma jirte ala falyuballigha shahida minkum al-ghaiba kiina maanta ila joogay maqlayow kiina maqan gaarsiibu rasuulku alayhi salatu wasalaam ballighu anni addu anni rahimakumullah allah inna harise amaanada qaado caalamka iga gaarsiiya allahumma sur man nasara diina muhammad ilaahu niki diinteeda u gargaar bu rasuulku yiri نظر الله امرأ سمع مقالتي maalinka wajiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wajigiisa Allah nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiis iga maqlay sidoo iga maqlay umada u gaarsiiyay rasuulku alayhi salatu wasalaam ummadan waa ummad ilaahay doortay sharafta iyo karaamada ummadan waxay ku yeelatay waa shaqadii nabigeena alayhi salatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala ma aha waa tarku dacwada markii laga tagay dibaata timiday idha tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallallahu alaykum adh-dhill la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum markaad xoolo dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo illa diintina aad u noqotaan maahine ila diinikum bal ila diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha hajka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zaman wa in la helo juhdu da'wa marali markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culama rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yiri shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xaga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisa iyo qofkii buu kala dhaxmaraa wixii uu iloway buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan laayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almas'ala walaalkayga muslimka oo faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabad galaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara bu nabi guri tog shaydaana toga kanu ka sii wacda liana umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaada shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani as-su' dacwada maxaa kale lagu helayaa fasaadka dhacaya uquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imam bukhari kitabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga alayhi salatu wasalaam ayaa yiri qariyad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yiri qariyada soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican ilaaqa u leh markaasuu yaa rabbi yiri qariyadan aad igu tiri soo halaag adoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yiri fabda bihi cadaabka xaqiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu sa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrka caabudaya ee macsiyada dhexda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomino kama murugoone uquubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab balay